asxaabta maanta waxay ku beegan tahay oo laga joogaa 13 sano maalintii aan ku biiray warbaahinta asxaab fara badan oo ku xidhan Ayub Show iyo asxaabtii hore igu xidhnaydba su'aal ay i weydiinayeen 13 sanaba ayaan rabaa maanta inaan ka jawaabo oo ku saabsan noloshaydii warbaahinta tani waa mid ka mid ah su'aalaha igu badan ee la weydiiyo tan iyo markii aan warbaahinta ku biiray oo haatan laga joogo muddo 13 sano ah waqtigu waa 2010 da'ahaana waxaan jiraa 10 sano balse waxaan aad u jeclaa barashada mihnada saxaafadda wana sababtay inaan ku biiro macad lagu baran jiray saxaafadda oo lagu magacaabo Aydam nasiib darro waxa la diiday barashada mihnada aanaadka u jeclaa dhowr jeer oo kala duwan sabab la xiriira da'dayda oo aad u yareed kadib isku dayo badan waxaan ku guuleystay ku biirida mihnadii aan jeclaa iyadoo la yaab ku noqotay dhammaan ardaydii fasalkan wax ku baran jirnay ugu dambeyn sida idin muuqata muddo 6 bilood kadib waxa rumoobay hamigii aan lahayn aniga iyo asxaabtii aan isku fasalka ahayn waxaana la gaaray maalintii aan qaadanaynay shahaadooyinkii ugu horeeyay ee diblooma ah ee mihnada saxaafadda aniga iyo asxaabtii aan isku fasalka ahayn waxaanu goobtii qalin jabinta ku kulannay Maxamed Cabdi Ilig oo ahaa markaasi agaasimaha telefishinka Home Cable waxaana isla goobtaan kaga codsaday inaan ka shaqo galo telefishinka Home Cable oo aan ku xidhnaa daawashadiisa Maxamed Ilig la yaabay ku noqotay arintani balse isaga iyo gudoomiyaha Home Cable TV Farxaan Xaaji Cali oo kulan wada qaatay 6 bilood kadib ayaa la ogolaaday inaan ka soo muuqdo shaashada Home Cable TV waana mar kale oo ay si xoogaysatay hamigeygii aan lahaa kani waa muuqaalkii ugu horeeyay ee aan duubo waxaana uu ahaa barnaamij lagu magacaabi jiray Mahawalada Carruurta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruuray waxaad soo dhawaataan barnaamijkii Mahawalada Carruurta oo kala socotaan telefishinka caalamiga Home Cable TV. muddo kadib waxaan kala kulmay dhammaan bulshada kala duwan ee ku xidhnaa barnaamijkan soo saaraha ka ah soo dhaweyn aad u wanaagsan oo ah mid siinaysa kalsooni gaar ah maadaama aan noqday wariye aad u yar oo soo fadhiista shaashada isagoo jira 10 sano kuwani waa qaar ka mid ah abaalmarino aan ku guuleystay kuwaas oo iyaguna sabab kale u ahaa inaan dadaalka sii wado waxaan ka mid noqday kadib soo saarayaasha barnaamijyo dhowr ah oo ka bixi jiray telefishinka Home Cable TV iyo sidoo kale wartabiyaashiisa waa run way adag tahay in marka laga eego dhinac in adigoo aad u da'yar aad noqoto caan dhanka kalena waa mid ku siinaysa fursado kala duwan kuwani waa qaar ka mid ah xidigihii saxafiyiinta ahaa ee aan soo wada shaqeynay oo qaar ka mid geeriyoodeen Allah u naxariiste waxaana ka mid ah Axmed Xasan Cawki Cali Seeyo Nimca Samriye Maxamed Cabdi Ilig Cabdisalaan Herri Maxamuud Cabdi Ducaale Barkhad Batuun Qora MM Custom Allah u naxariiste iyo Sheekh Dalmar hadda waa 2022 waxaan sameeyaa barnaamijyada Ayub Show kuwaasi oo ka sameeyno waxyaabo faa'iido u ah bulshada gaar ahaan dhalinyarada inta badan marka aad bilaabayso way adag tahay balse sirta ay ah joogteynta waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo ku xidhnaantaada Ayub Show muuqaalkan yar kooban ayaa ahaa mid aan ugu talagalay inaan kaga warramo noloshaydii warbaahinta ee 13 sano u dambeeyay ujeedada labaadna waxay tahay in qofku uu gaari karo hami kasta oo uu leeyahay iyadoo daadu aanay haba yaraatay ahayn wax qofka xiri kara ku xidhno Ayub Show lana soco muuqaal cusub haddii aad ku cusub tahay barteeda Facebook fadlan follow barteeda YouTube-na subscribe